kii iminka uun dhammaaday ee 2017 lagu dilay dalka Suuriya. Sayid Xuseen Faysal Cali Waraabe ayaa Suuriya tegay sanadkii 2013 kadib markii la duufsaday oo warbixin khalada la siiyey sida uu aabihii noo sheegay. waxa uu ku dhashay oo ku noolaa dalka Finland. Xuseen waxa la socotay xaaskiisa oo Finland ka raacday iyo 2 gabdhood oo u dhashay intii ay ku sugnaayeen deegaanadaasi, waxaana la sheegay in iyadu soo xaqiijisay inuu ku dhintay weeraro dhinaca cirka ah oo loo geystay goobta uu ku sugnaa. haddaba injineer Faysal Cali Waraabe ayaa Axmed Cabdinuur uga warramay dhimashada wiilkiisa. waxa weeye xaaskiisii ayaa la joogtay 2 carruur meesha ku dhalay, marka shalay taayay hooyadii ay u soo dirtay klib ay leedahay waxa geeriyooday oo bishii 29 bishii hore iyo waqtigiisii inuu geeriyooday. saasaan ku helay marka xaaskiisii soo sheegtay xaarisay. marka magaciisa maxaa la oran jiray? Sayid Xuseen baa la oran jiray. 19 uu dhashay dalka Finland ku dhashay, halkaasuu ku barbaaray. halkaasuu markaa dejibadaas ay ka qaadatay isku jibooday markuu arkay magaalada sida madaxweynaha Suuriya sida dadka u leynayay markaa propaganda soo gaadhay ninkaas waa gaayo dadka muslimka u leynaya markaa reerkii Djibouti ka mid ah. marka goormuu ku biiray qoladaas IS way ugu timid meesha, laakiin soo markii waxa ku biiray dadka muhaajiriinta ahaa oo tagay meesha ugu dhalatay isoo 2013 ku biiray meesha. IS gadaal iska dhalatay meesha ka abuurantay. waxaa markaa dadkii asabiga ahaa meesha u jahaatay buu ahaa mana 2013 muddada adiga aabba ahaan xiriirkiinu sidee buu ahaa? anigu markii soo xiriirka uu mutaxinayno de markuu 94 uu dhashay, ana 29 aan dalka ka imid oo arrimaha Soomaaliya galay. marka waxyaalaha iska saaraba dhibaato waxa weeye waan dayniyey oo aabanimadii ka imid. marka laakiin hooyadii ayay xiriir la lahaa markuu dambeysay la soo hadlay bishii dhaweyto 25 bay ahayd. marka waxaa bay ahayd uu ka soo baxay maalmii khatar tahay oo riqa ayuu ku jiray in badan oo dadkiinda magaalada ka qasay loo galay loo go'doomiyey. marka uu ka soo baxay xaaskiisii 2 carruur iyo meesha hadda ku geeriyooday ugu yimid. hadda wuxuu ahaa qalbigiisa xaggeena noo soo jeeday. marna ku qancay oo arkay meesha inuu ku soo qaldamay oo hadda xaggeena usoo jeeda ayay geerida u timi. laakiin nimanka waxaan sameynaa uu soo baxi doona insha Allah taala taasoo rajeynaya oo khatartii weyna uu soo dhaafay. marka hooyadii xiriir joogta la lahaa. dawladda Finland iyo adigu arrintan geeridiisa wax xiriir ma ka sameyseen? wallahi dawladda Finland waa mar horaan u sheegnay berigii u baxayay baan nidhi ninkaas waa jibriisay baasaboorka ayaa ka dhacay aan loo jidiidinin. marka waxay yidhahdeen maanu dami nagama gelin, marna xaq buu leeyahay haddii 18 gaalo baasaboorkiisa qaato waanu sheegnay. marka isaga wadada waxba ka saarayna saamo nafteeda uga saarayo carruurteeda oga imi 29 iyagana waan uga saaraya maalinta hadee inka sax tahay wax ilaahay qoray waxaan la joojiyay intaas uu tagay si xaaskiisa lama yeelin. marka waa ilaa hadda lama xiriirin oo shalay geeri dhacday, laakiin hooyadii waxaa joogta hooyadii la xiriir doonto hooyadii. xaaskii iyo carruurtii maxay ku sugan yihiin baa la yidhi hadda? waxaan wax ku soo garanayno klibkaas baa laga hayaa oo jiri maantaan helay meel internetka shaqeynayo oo geeriyooday. ilaa hadda waxay ku sugan tihiin iyo sidii u geeriyooday midna kama hayno. dadka khatartaas oo ku jirta inaa soo nabadgeliyo. geerida waa xaq, waa meel la wada socdo. marka waa alxamdulilah rabbi caalamiin. isagoo islaam maanta walaag baa wadaayo diinta kor u qaad buu ku dhintay. in badan oo jirto carruur ku dhimata meel xun. isagoo maqaam fiican buu ilaahay aan ku baryahay maqaam fiican geliyo. kalimatullah isaa kor u qaad. marka waxaa laga waxaan maanta inuu noo shafeecan qaadan insha Allah ka barina insha Allah tacaala jannadii galan ilaahay ka barina subhanahu wa ta'ala ilaahay qalbigiisa u qaado. maadaama waxaan dadka badan soo taxsiiriyeen ay gaarsiin oo maadsanyihiin iyo dadka BBC ay maadsanyihiin ilaahay ka dhigan samir iyo naga soo